waa maalin kale iyo madal kale oo ay qaar ka mid ah dhalinyarada degan dalkani Mareykanku ay ku soo bandhigayaan dadaal iyo horumar ay ku tallaabsadeen kaasi oo ah dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo midnimadooda. Ururka Snabi oo ka mid ah kuwa dhalinyaradu ay samaysteen ayaa waxa ay shirweyne ku qabsadeen gobolka Minnesota, waxaana uu ahaa shirkoodii sanadlaha ahaa ee dhalinyaradaasi horumarka ku tallaabsaday iyagoo oo ku soo bandhigay waxyaabo badan oo ay ka mid ahayd in ay ganacsiyo ay ku tallaabsadeen isla markaana ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan oo nolosha ah oo ay waxbarashadu ka mid tahay. sidoo kale waxa ay soo bandhigeen afkaar iyo mowduucyo ay ka doodayeen kuwaasi oo ku aadan sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen, iskugana duubnaan lahaayeen. waxaa sidoo kale kulankan ka soo qayb galay marti sharaf ay ku marti qaadaan inta badan oo ka kala yimaada gobolada Mareykanka iyo caalamka intiisa kale, kuwaasi oo ay ka eegaan dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo horumarka nolosha. waxaana ka mid ahaa martidaasi ka soo qayb gashay macallimiin, culimaawidiin iyo siyaasiyiin ka kala yimaada qaaradda Afrika. shirka ayaa markii uu soo idlaaday waxaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah dhalinyarada ururka, iyaga oo ka warbixiyey ujeedada iyo sidoo kale hiigsigooda waxa uu yahay. ما شاء الله برنامجكان سنة كستا قبنا وبرنامج آدهين ومهم لأن مركز وحا لغا هدلا محلها ودباتيسيهين لب يوحاس بدما أنت ما شاء الله لأن ربضان ووح قبصدي ونولشودي محلها كو هرمر بدن كانين اسكو إمادين وربان إني كهدلان وحي قبتين حيثو بيان سواء نتوركين دادك اسلا حرير اسبرتان برنامج آدهين ومهم بدن ما أنت almost كن قفا إماتي also waxaa naga soo qayb galayo wasiirka Bailey oo aan invite gareynay. so alxamdulillah waa barnaamij aad yahay oo u fiican qof kastana insha Allah hadaa ma sanadkan ka qayb galin waxaan doonaynaa insha Allah sanadkan inaan ka qayb gashiin. Assalaamu alaykum waan salaameynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay. aniga oo magacaygu yahay Cabdullaahi kana mid ah maaragtay Snabi board member soona qaban qaabiye xafladan weyn ee Somali Diaspora Conference ay isugu yimaadeen aqoon-yahaniinta, dadka businessyada leh, ardayda. sanadkan waa sanadkii ugu weynaa uguna dad badnaa, ilaa iyo 1,000 qof dad dhaafay ayaa noo yimi. waxaana ka tijumaysaa baahida ka haysa dadku inay isu yimaadaan, inay fikrado kala qaataan, in wax la kala barto. waxa dhacday inaanu badinay programmada sanadkan. waxaanuna rajaynaynaa insha Allah sanadka ka sii dambeeyay inaanu ka weynaysiino oo uu noqdo shirkani shir ka weyn insha Allah tacaala. waxaanuna filaynaa dadka businessyada leh ee aan sanadkan ka soo qayb galin, dad badan ayaa jira oo table rabay inay ka soo qayb galaan businessyadooda soo bandhigaan, way waayeen dadkaas oo kuraasti waa ka buuxsantay miisaskii. insha Allah waxaan sanadka dambe rajaynaynaa inaan meel weyn idin geeyno oo maaragtay idin wada qaata insha Allah tacaala. wixii taageero ah nagala soo xiriira. aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin inaad nagala soo maaragtay qayb gashaan xafladan aadka u weyn. anagoo Snabi waxaan leenahay thank you all insha Allah. marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bailey, isagoo oo dhalinyartaasi la dardaarmay sidoo kalena hambalyeeyay waxqabadkooda iyo isku duubnidooda. It's indeed a great pleasure for me to be here sharing this great meeting with you. Since yesterday, last night and today, I heard a lot of very inspiring stories. Indeed, very inspiring stories. Very innovative ideas. And that is when they are normal, that's what Somalis are for, when they are normal. But when they are not normal, they act totally on the other side. waxaana kale oo aan wax weydiinay ama aan mikrofoonka la dhex marnay dhalinyar
iyagu meeshaasi kusoo bandhigayay ganacsiyo kala duwan oo wax ku ool u ah bulshada ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan Mareykan gaar ahaan gobolka Minnesota. waxyaalaha la shaqeynaa ama dadka la shaqeynaa waxa weeyaan individualka ama family da tahay ama ilmo aad haysatid ama couple laba qof isqaba waxa kala shaqeynaa dadka xagga ma aragtay hadii walwal stress ka hayo noloshooda ama haduu maartay murugo ama ay maartay cusub wax isbedel cusub oo ku dhacay. Irshaad Umar Manifesto, Horn Cable TV, Minnesota.